warwaadigan kashkashdayna kelmadaad mar tiraahdo mid kaabil ahayd kolna aan oranayni ma kaftankii kalamaane kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix kurodaanan kolkooda hooy kurbadii ahayda sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn now dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi dadku waa kalamaan kulmiyaana midaysay horta sheekadan kalamaana maxaa tiiriya may erti midii midaysay maahino aryaadhaha kalamaaney dadka Soomaaliyeed waxaa la dhihi jira saddex nuucay ka kooban yihiin dawlad ku nool dawlad la nool iyo dawladiid waxaan uga jeedaa horta kalamaan intay naga xigtaa dawlad sama yaqaanin yaa ii sheegi kara bari gasho war iyo daldalal lama rabee anigu Cabdullaah 16 sanaan jira dawladii aan arkayna beesheenu sida wax u qaybsataa ka fiican maba dhalan dhowrtaysa oga alla yiri maan dawdad waayeelahan la waramayo ilma la warami mahay adeer madaxda dalku waa dhalinyare hayasi wiilka Cabdullaah Soomaalidu waxay dhihi jirtay waayeelka guruna wax aqoonka gura marka inaan ku walixiyo 10 jiro waa qaangaad aryaa lama soon qaad laguma qaangaare yaa dawlad yaqaan dawladnimo waxay tahay dal iyo dad iyo calan deer iyo xuduud ay garanayso dunidu leh xeer loo dajiyay oo lagu dana wadaaga leh hay'ado diyaar oo hawl loo dirsadana leh nidaam loo dajiyay oo docna looga leexana lagu daadaheeyo leh oo la isku daray baa dawladnimo runtoodiyo noqon kara damaanad Axmed Waran lawana waxaan ku dari lahaa limba kaalin buu ugu jiraa qaranka Kaysow shaarkiisu midu ka hayo lagu karaameeyo kamadow midu weegiyo lagu karaahaysto midba kaydka kuleeyuu kala kulmayaa inkastoo kabaalada la suro kooxna wada qaado ruqadii nin lihi aanu kicin waan la karahayne kabintaad ka sugi dawlad kale kaalmo lagu siiyo waan kaban ka raateen oo la isku kaashadee kalsooniya waxay u baahan tahay waa kartiya hawl arooga booso anna waxaan ku dhihi lahay dawlad lama diido daligiin beero jirni dulmi iyo deelqaaf haddii aan iska dayno dar alle waan ku doogsnay dawlad daacadda allowna sii gooyowow allaha ka aqbale ma gabay baa mise waa duco aroosay kaa noqotay gabay war lee ahaa aryaada waxaa la yidhi jacburkiyo shactarad iyo gabay tirinta mooyee dadku ima yaqaano bulshadaani baranine dhakhtar dawladeed oo cilmi fiican baan ahay qarannimo bukootaa anigay u mudataa isbitaalladeydana ilaa 10 dal baa taal liibiya iska daayo suuriya iyo ciraaq iyo yaman baan tacaalsheeye balse waxaan la yaaboon ku wareeray maalmahan Soomaalida kor iyo hoos xanuunkeedu wuxuu yahay shaybaaradeedii isku raaci waayo mid wuxuu leeyahay madaxda xanuunsan dadku waafiyo yahay midna wuxuu leeyahay shacabka qariban oo madaxdooda diidan ma bukaan mas'uuladu midna wuxuu leeyahay dhulka cudur haleelo laga wada tahriibay maxaad uga murmaysaan anna waxaan ku leeyahay intaas ku soo koobaya yaanan sii badin yaa laga daba orod maandhow inkastoo 16 jir tahay haddana warkaagu waa run oo Soomaalidu inay bugto horeeyaan loo sheegay abwaan Cabdiduux Yuusuf wuxuu hore u yiri Soomaalidu way bugtaa bisteed weeyo la hubi inuu cudur ba'an helay bidhaanta laga gartaa war inay bugto Soomaalidu Uhuru Kenyatta mar hore ogaaday oo hees ka sameeyay nimbukiya nimbaasaysan bay boqol daweysay Uhuruna muxuu yiri Uhuru Kenyatta wuxuu yiri intaanay boogta dhayan bukaan socodkana yihiin badoodoon qaadaniyo inaan boobnaa haboon aroo busha hadaad rabto inaad ka baasato cambuul baalle la cunaa ma siri uburo maragto aan maqli jiray aawa maday isaaq bariga gooyoba heeska ka cilshe waraamada isaaq hadda koor xawaalo barbaar u dhuuma jire hadda xabsi guriga ku jira la yiriyay dambi ka galo ka dhuumanaya warmada isaaq shalay buu hees qaaday oo alankay la dhahayo markay heesaas lagu haystaa arooda maday isaaq war ma ka haysiine waxa ku dhacay cudur la yiraahdo mahundura mehergala adi hortay rogtay ahay على كل حال ميلو آدي بمدى إساق كيك تيسي شلي يا مانتا لما مقال هير قلبي يقولنا واكرهستين كذوذيها كودعي كيك تبدأ إساق ولا غرست أريال هوا والنتين ورك أنا بالله بيهي قد أحقلنا إدقيستا حادو دمي ويساتات بالله ده مركا هذا دمي إدقيسو دو محل قصاري ولا ورير شدد كان وحنا واسكبو كان وحنا وافياويهن وحنا وادحدحاده
wajac qoftow kawaaliya wadaada qaasa loo waaca wajac qoftow kawaaliya wadaada qaasa loo waaca cabdulla wajacloodoo ku dhacahe xanuunka dadka hadda haya kaduudiyaa la yidhaa ma wareertay adigu dad iyo lo intaad u kala wadaa waaba isku guriye war mustafa sheekh cilmi hadda ka hor riwaayadu sameeyey waxay ahayd dad lo wada noqoy mugga maloodiyaan wada naqannay somalilan lo maahee idinka ha idinku koobnaato aryaa lo hanaga wada dhigid ma wada ihinoo walaxdhinnahaan dhaannaahe haa hore waxaa loo yidhi qofkaan wax ogayn oo og inuusan waxba ogayn waxbuu og yahay eebbaa'iga oo lo haddaadnaan ahayn lax maad tihin war laxdu yaysan kula liidanin waxaaba la yidhi laxdii lacag heshaa waayahan liidar bay noqon midda kale lax iyo laxow meel ma wada galaan ma maqlina miya war heedhaha wejicii xoolahaad ku wareerteene anna kaduudiyaan idinkala hadlaaye kaduudiya markii saddexaad uu soomaaliya ku soo laabtay waa runtoo xalayaan xog waraysi ku dhegaysta xuseen gurmadoo nin dhakhtara weydiinaya ditoore kaduudiyaha iyo soomaalida maxaa ka dhexeeya xow ka weydiiya xaa kaduudiya iyo soomaali iska galay ma maran yahay xiriiray leeyihiin sababtoo ah waa dad maran iyo cudur soo habaabay mugga habaw kasta manugu kor habsaha war waxaa horey loo yidhi dad hadduu isqaban jiray ama muran daldali jiray haddii kale isdili jiray kaduudiyaa digsoo yidhi war kaduudiya markii ugu horraysa soomaaliya lagu arko daacuun oo awal hore caanka ahaa dalkan la dooday daacuun wuxuu yidhi damanow kaduudiya bal inaad wax daran tahay horta yaa ku soo diray dig xaggeed ka soo tiri markaasaa kaduudiya ku jawaabay war dalkan daryeel ma leh dayr iyo difaac ma leh duul ilaaliyana ma leh ciddii dari ka haysana wax u diidayaan jirin ee doorkaan anaa leh dib u jeesa daacun war markuu leeyahay dalkani duul ilaaliya ma laha askar daafacaysiya miyaan duubcas loo dirin meeday dawladdii sare waryaa askarta ma shabaab ay la dirtaa ama kaduudi ay la dirtaa miwaalintiin war shabaabba waa xanuun kale aawa dhakhaatiirtii marka shaqadan lahayd xaggey aadeen aryaadhaha war ma haysiina wasiirka wasaaradda caafimaadku waxay tiri dadka geda joogaa waa caafimaad qabaan dadka degmada buurdhuubo ka qayladhaamihayana warka hore wax kama jiraan sababtoo ah hay'ad meesha joogtaan la xiriiray oo ii sheegtay dadku inay caafimaad qabaanay tiri oo hay-ad markay la xiriirayso wasaaradda cid uga wakiil uma joogta miyaa meeshaas wakiil maa joogi kara maha axmed madoobaa laga cabsahaahe war axmed madoobe siyaasaddu la diraayo caafimaadka lama diriro warwar ma haysiina galmudug ma lagu kala guuray ma dictor shaakir ah warqad soo saaray aroo shabaab maa soo weerarayne war shabaabka aad sheegaysaa meel xalar dheer agtiisa oo shala qarax ku diyaarinayeen ayagiyuu kula qarxo waxaa la yidhi xabadba kama hadhin waxaa hore loo yidhi god siraadha qodir haddaad qodanaha dheereen ku dhici doontidaana ma ogide war maahane qaldaan ma qaldaan la yidhi war qaraxu meeshu ka dhacay god maahayne baabuur lagu raray buu ahaa aroo dabagalaay ku go'eenaa lagu yidhi hooy warwarkaa naga dhex gelin aniga dhuusamareeb ayn kala hadlay xubnihii ahlusunna ay soo xuleen oo maanta xaflad qadaa loo samayn rabay ciidanka dawladda hor istaagaa la yidhi haddii wadaadadii waxay dhaheen wallaahi xildhibaanada aan soo xulnay inaanan ka noqonaynin ayagaa sharci ah shaqadana way wada hayaan mooshinna way keenayaan xubnahaas lamaba dhaarin nina mooshin keeni ogaa macbuudke warwar ma haysaan reer jabuuti waxay dhihi jireen wadaadkeennii wakaas war xubnaha ahlusunna ay soo xuleen waxay leeyihiin labadeennii wadaad waa kuwaas war reer jabuuti heesta uga dheelina waxay ahayd walwaleeyo war kalaa yimid wadaadkeennii waa kaas war guddiga maamul udhisida galmudug shuruudaha ay soo jeediyeen miyaa xubnahaani buuxi waayeen war shaarka guddigu tolay xubnahan la ekaan maayo way ka horreeyeen war sharcigii maaliyaddu aqalka sare ay soo celiyeen golaha shacabka maanta waa ansixiyeen midho daray duuduubaa loo liqaahaa la yidhi aroo midig gundiga ku jiro midiggeed saaran looma daadiyaa la yidhi warwar ma haysaane madaxweynaha somalilan muuse biixi wuxuu yidhi soomaaliya ha midowda miyuu yidhi farmaajaan la kulmayaa miyuu yidhi imaaraadkan u socdaa muu yidhi etoobiyaan walaalanahay maas yidhinne soomaaliya jaar baanu nahay miyuu yidhi cali khaliif somalilan sooma geli kara miyuu yidhi war hanala waalaninin dhegaysta guddiga komishinka doorashooyinka somalilan sifad sharciya ayaa lagu xallinayaa buu yidhi waanwaanta ay soo jeediyeen waxgaradkuna waa tixgelinaynaa buu yidhi doorashooyinkii baarlamaanka iyo golaha deegaankana mar dhow baa la qabanayaa dawlad iyo xisbiyada mucaaradkiina way is afgarteen buu yidhi muuse waaba soo miirsanayaa ee madaxdeennaan maxaa ku dhacay wakhti badan bay joogaan ayagube arooda faysal cali waraab wuxuus yidhi farmaajaba intiis joog wax wada hadal ama gelayno guddiga uu magacaabani waa haraadigii maxamed siyaad barre adeer sheekada nagala tag asaga iyo muuse biixiba waa haraadigii maxamed siyaade war faysal wuxuu ku leeyahay warkaas ilaahay baa wax ka odhanaya aryaadhaha waa yaabaye wariyayaasha dhahaya ceelasha dadaa ka barakacaya xay beenta ku falayaan waryaa guryuhu markay bannaanaadaan rabaan inay soo degaan beentood ma soo degi karaan mana barakacayno war gabar wariyaha oo telefishin ka shaqaynaysaa waxaa la yidhi waxay ku guulaysay
guulaysata abaalmarin lacageed markaasay waxay moodaa malaayiin dollar inay ku guulaysatay telefishinkii iyadoo live u wada warkiiba waxay ku tiri makarafonkii inta dhulka iska dhigtay agaasimahayga ha ogaada abaalmarin baa ku guulaystay shaqadiina waa ka ruqsaystay kadibna waxay ogaatay lacagtuba inay wax yar tahay shaqadeedii bay ku soo laabatay waxay tiri agaasimahana waan ka raali gelinaya waxaasna waan ku qaldoomay iga raalli ahaad haaho horaa loo yidhi ma sugto mahar ma leh waryaa wariyihii sacuudigu ay qasheen jamaal khashoggi turkigu waxay yidhaahdeen dadka la xukumay gardarra lagu haystaa dambiilayaashii waa joogaan aryaadaha wariya jamaal khashoggi maxamed salmaan intuu joogo cadaalad arki maayo xaa loogu daalaa war soomaalidu waa waalan yihiin wariye sacuudiya maxaa naga gala cadaaladiisa ku weenayaan mir cadaalada haysan cadaaladda xaggay ku arkayaan been inay sheegeen baa haddar sheegaysay cadaaladda nafteeda cawda cadaaladeedii weligiinba cadaalad arki maysaan inta muddici garsoore yahay araada dilkii bajaajkaas soo laabtaa la yidhi wariyaa madaxweynaha waa la doortay maxaad u qaylisay horta dulmanuhu intuu dambiilaha xafiiska dalbanayo cadaaladi ma jirto aryaadaha horta cadaaladda xaad ku fashilxay idinkala maqan taha caloosha ka nudgo'e horta cadaaladda anu ma fahmina ma jacayla ilmahan arkay adoogood waa tihiin warkaasi baydhaa cadaalad la'aan lama noolaa kare war cadaaladda cirkii dhulka ku taagan war soomaalida nin walba siduu raba cadaaladda u ah waryaa xishooda looma sheegi ciridka ha laydinka toobe